بسم الله الرحمن الرحيم ومركله إيه لبا إري إيه لبا دقيقة أنت سهروا قلين ولي وحص عطاء قريتان كي عن قرية بيش جانوري سنة كلبا كن لباتن يلح حاول دائما أنه صبير برا لقدا ونا بروسيت يسن لبا إري أو أن منطقة هذا دونه إري كوات وحال هذا spoil spoil حلين واي وحال حليو أما لو عياره أي هذا spoil kasoo qaad adoo faraxsan ayaa qof maalintaada ka hadlayay maxaa leedahay you spoiled my day maalinteeda waa iga hadlaysay qof aad dhigi kartaa I'm sorry waan ka xumahay if I spoiled your morning haddaan subaxdii ka hadlayay waxaa kaloo dhigi kartaa parents waalidiintu sometimes mararka qaar spoil waxay hadleeyaan their children caruurtooda by giving them ayagoo siinaya everything they want wax walba oo ay carruur doonayaan waxa dhigi kartaa oo kale the milk will spoil caanuhu way halaabi doonaan if it's not refrigerated haddaan friger la gelinin kaas wuxuu ahaa ereyga koowaad ee spoil wax la haleeyo ama lagu cayaaro ereyga labaad waa offend ugafid wax loo gafo ama dad dareenkooda lagu cayaaro dadka qaar waxa jiro marmar inay dhahaan ereyo ee dareemin inay dadku ugafayaan ama dareenkooda ay dhaawacayaan waxa leedahay you are offending everyone here qof walba halkan jooga ugafaysa adig oo aad dareenkiisa dhaawacaysa you are offending everyone here qof walba halkan jooga ayaa dareenkiisa dhaawacaysa marka waxa dhigi kartaa I'm sorry waan ka xumahay if I offended you haddaan kuu gafay qof aad tala siin kartaa don't offend anyone with your words ereyada qof ha u gafin oo ha ku dhaawacin qof ha bari khudbad leh waxaad ka cabsanaysaa ninka dadka u gafa bari ama dareenkooda dhaawaco waxaan leedahay I hope waxaan rajaynayaa you won't offend anyone inaad qofna u gafi doonin with your speech khudbadaada u gafi doonin tomorrow bari marka ereyga offend waa qof loo gafo oo dareenkiisa la dhaawaco hadda kadib markuu erey idin muhiima aad u baahan tihiin waxaan u deemlaanina koorsada aan bilaabay bisha January ee sanadkan 2026 inta laga gaaray 10 xiga wabilaahi tawfiiq